بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. walaaliheen mubaarak shaab waxay maanta ii soo bandhigayaan biidni illaahi tacaala geedka la yidhaahdo baabunaj. af ingiriisna waxaa lagu yidhaahdaa kamome. waa geedkaas quruxda badan, aad u jeedad ubaxa. geedkaas fawaa'idiisa aad iyo aad ay u badan tahay. jirooyin badan ayuu daaweyn karaa. jirooyinkaas waxaa ka mid ah dhibaatooyinka caloosha oo dhan iska dheh: gaas, caloosha aan soconaynin, matag, qaras, calool xanuun, caloosha fuurta. waxyaalahaasoo dhan waa u fiican yahay. qofka wuu dejinayaa. hadduu qofka yahay qof casabiyo carab badan, baantoo dhan iska xanaaqahaya, koobku ka cabo si fiican u dejinahaya, hurdana wuu keenayaa. hurdo fiican waa laga helaa qofkii si fiican aan u seexanaynin oo hurdada ay fawdo ka gasho. walwalka waa u fiican yahay, murugada waa u fiican yahay, stresskana waa u fiican yahay. waxyaalaha kale uu taro dumarka, infekshinada ku galo xubnaha taranka way ku meeri karaan oo infekshinkaas uu ka takhallusi karaa. wadnaha waa u fiican yahay, xiidmaha dhiigga qaadana wuu sifeynayaa oo wuu nadiifinayaa. kansarka wuu la dagaalami karaa oo waxa weeyaan kansarka iyo tuumarka iyo kulli dhagow ka raaci karaa. waa geed aad u qiimo badan, muddo dheer ay adduunka isticmaalahayeen. wadamo badan xataa daawaday ku daraan. laabjeexa waa u fiican yahay, hargabka, riiraxyada, caburka iyo jirooyinka xilliga qaboobaha qofka ku bilaabma waa u fiican yahay. shubankana wuu yareeyaa. sidoo kale waxyaalaha uu taro geedkan, xanuunada ku dhaca dumarka qaar xilliga caadada ama ka horeysa xilliga caadada ayna ku dhicin, waxa weeyaan wuu ka takhallusi karaa. dadka qaar waxay u isticmaali karaan inay miisaankooda ku ridaan. sidoo kale waxyaalaha uu fiican yahay geedkan, caruurta aadka u dhaqdhaqaaqa badan waxa weeyaan wuu dejinayaa. sonkorta hoos ayuu u ridahayaa oo onsaliinka ayuu xoog siinahayaa inuu shaqadiisa si fiican u qabsado oo naturka ah jirka ku jira. waxyaalo badanaa ku jira oo laga faa'iidi karo: carbohydrate, calcium, bir, magnesium, potassium, sodium, zinc, iyo waxaa ku jira copper ama maar. waxaa kaloo ku jira manganese, vitamin BA, vitamin B2, vitamin B5, vitamin A, iyo waxaa ku jira folate. geedkaas dadka qaar waxaa fiican inay iskaga tagaan. gabadha xaamilka ah uma fiicna. gabadha naaska nuujinaysa sidoo kale uma fiicna. qofka waxa weeyaan surgeryga galahaya sidoo kale uma fiicna oo waxa weeyaan wuu dhibahayaa. ama surgery mar dhow ka soo baxay sidoo kale uma fiicna. gabadha kansarka naaska ku dhacayna uma fiicna. gabadha kansarka minka uu ku dhacayna iyo ogxumaha uma fiicna. sidoo kale waxaa fiican inay iskaga tagaan. intaas waa qeybo ka mida oo lagu tilmaamay geedka la dhaho baabunajka. aad waxaa uga hadla dhakhaatiir jarmalka ah. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. walaaliheen mubaarak shaab. السلام عليكم.